munaasabad lagu xusayay maalinta xuquuqul insaanka bini aadanka ayaa lagu qabtay magaalo madaxda gobolka Awdal ee Boorame. warkana waxaa noo soo diray wariyaha Somali Channel u fadhiya gobolada Awdal iyo Salal Cabdifitaax Ahmed. sanad kasta 10 bisha December waxaa caalamka iyo Somaliland laga xusaa maalinta xuquuqul insaanka iyadoo lagu soo bandhigo barnaamijyo lagaga hadlayo dhowrista xuquuqda ay leeyihiin haweenka iyo dadka jilicsan. magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa si weyn loogu xusay maalinta xuquuqul insaanka iyadoo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland, ururada wadaniga ah ee Zuhura, Sayis iyo Moonlight, waxaana lagu soo bandhigay riwaayad ka hadlaysay tacadiyada loo geysto dadka tabarta yar iyadoo halku dhiga sanadkana uu yahay ilaalinta xuquuqda haweenka, caruurta iyo dadka jilicsan. munaasabadan waxaa ugu horeen ka hadlay Mukhtaar oo kamid ah ururada soo qaban qaabiye xuskan, wuxuuna sheegay inay ku dadaalayaan ilaalinta iyo daryeelka birmigeedada guud ahaan xuquuqda bini'aadamka tacadiyada loo geysto. waxa kale oo hawsha markaasi bangareynaysa hay'ado kala badan looga soo noqday UNICEF, UN Habitat. markaas maanta waa maalin caalamiya oo dhammaan gobolada oo dhan marka laga xusayo, gaar ahaan hadda marka usoo noqono hawshan muqaadano GCP iyo Shunta Base Finance waa hawl ka socota 6 gobol oo loogu talagalay in mustaqbalka laga yeesho siyaasad guud oo dawladdu markaasi ay ansixiso oo baarlamaanka lagu horgeeyo, taasoo markaas aan u soconay aasaaskeyga si aanu ogaano horta tacadiyada jira. sidoo kale waxaa madashan ka hadashay isku duwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Awdal, Firdowsa Sheekh Saciid, waxayna sheegtay in wasaaradooda ay diyaar u tahay sidii loo dhowri lahaa xuquuqda dadkaasi tacadiyada ugu badan lagu sameeyo, laguna dareensanaado wixii xuquuq ah weliba qaybaha nugul ah. maantana asbaynta koowaad ay tahay in la isla garto maadaama ay bateen tacadiyadii loo geysanayay haweenka iyo caruurta in ay noqdaan kuwa adduunka maanta fariimo isugu gudbinayo. sidoo kalena gobolkeena inaan ugu talagalnayno inaynu bal iska aragno in la dhowro oo la sameeyo xuquuqda aasaasiga ah ee haweenka iyo caruurta. sidaa darteed haddii aynu u soo laabano dastuurkeena Somaliland qodobkiisa 12 waxay qeexaysaa jamhuuriyadda Somaliland inay aqoonsan tahay kuna dhaqmaysa axdiyada qaramada midoobay iyo qaanunada dawliga ah. waxa kale oo ay sameynaysaa baaqa caalamiga ah ee maalinta human-rights ama xuquuqda aadanaha. baaq aad u dheer ayaa laga soo saaray gabagabadii kulankan, kaasoo ku soo biyashubanaya xukuumadda Somaliland, hogaamiye dhaqameedyada iyo culimaawidiinka Somaliland sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen cid walba oo tacadiyadaasi sameynaysa in laga hortago. Cabdifitaax Ahmed, Somali Channel, caasimadda gobolka Awdal, magaalada Boorame. halka aad warkaas ka daawanaysaan waa London, xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga ee Somali Channel. magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay xaflad lagu maamuusay dib u soo celintii lahaanshaha dhulka safaaradda Soomaalida ee wadanka Kenya. warkana waxaa noo soo diray wariyaha magaalada Nairobi Faisal Casayr Maxamed. markii ugu horeysay 15 sano kadib ayaa calanka Soomaaliya laga taagay safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Kenya, gaar ahaan caasimadiisa Nairobi, kadib markii 7 bishan lagu guuleystay in dib lagu soo celiyo dhulkii safaaraddaasi gacanta ummadda Soomaaliyeed. boqolaal dadweynaha oo ay ka muuqatay qiiraad u ballaaran kuwaas oo iskugu jira xubno ka tirsan dawladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya, mas'uuliyiin ka socda beesha caalamka, haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, fanaaniin iyo
walba oo ku sugnaa goobta wuxuu ahayd maalin taariikhi ah oo qiimo gaar ah u leh dadka qaarkiina la arkayay ayagoo goobta dhexdeeda ku ilmeynayay inkastoo munaasabadda ay ahayd mid aad u sareysay oo dadweynihii kasoo qayb galay dhammaantood ay ka muuqatay farxad iyo reenreen ayaa haddana xaruntii ay ka dhacaysay xafladaasi oo ahayd xaruntii hore ee safaaradda Soomaaliya waxaa ka muuqday burbur aad u baahan oo isbedel ku keenay bilicdii ay hore u lahayd safaaradda Soomaaliya safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Kenya Maxamed Cali Nuur Ameerika oo khudbad u jeediyay dadweynaha Allahi wa barakatuhu waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh diblomaasiyiinta mudanayaasha marwooyinka dhalinyarada wariyaasha ka soo qayb galay maanta oo ah maalin aad iyo aad qof kasta oo Soomaali ah taariikh u gali doonto maalin muhiim ah saacadtiin bishii 7 sanadkan bishii December 2010 waxay noo suurtooday mahad Ilaahay ka sokow in dhulkii aan ku lahayn halkan oo hadda idinka aad joogtaan inaan soo ceshano oo aan helno mahadaas waxay iskale taariikhda saad u ogtihiin saa u dhacday Ilaahay ka sokow dad fara badan oo ay ka mid yihiin Ilaahay ha u naxariistee safiirkii noo joogay Djibouti Muuse Xirsi Faahiye iyo Maxamed Ganje iyo dad fara badan oo ganacsato Soomaaliyeed iyo Soomaali fara badan oo halka Nairobi deganaa isku tagay lacag arooriyay abukaatayaal qabtay maxkamadii furay ayagana mahad gaar ah ayay leeyihiin waxaa kaloo mahad leh judge-ka Maxamed Ibrahim Ahmed Isaaq iyo abukaatayaasha ayagana sidii mataqaanaa volunteer-ka ah arintan u galay xooga saaray mataqaan nagala shaqeeyay arintana bilaabay ayagana aad bay u mahadsan yihiin maamul Saynab Cali Cismaan oo kamid ah dadkii xogogaalku u ahaa dhibaatadii ka dhacday safaaradii hore ee Soomaaliya taasoo lagu boobay dhulkii safaaradda isla markaana lagu xiray ninkeedii oo ahaa safiirkii xilligaasi Soomaaliya u joogay dalkan Kenya Muuse Xirsi Faahiye gurigaan aan ma goobtan aan maanta joogno waxaan idin sheegayaa walaal inaan ahay horta haddaan isu kiin sheego xaaskii safiirkii Djibouti ee geeriyooday Muuse Xirsi Faahiye Allah u naxariistee waxaan idin sheegayaa walaalayaal goobtan aan maanta taaganahay walaalayaal waan ku faraxsanahay guusha ka dhalatay wixii ka dhacayna 1995 bishii koobaad 25keedii qofka ka marxaati kacaya ee ka hadli kara ee wixii ka dhacay ogaa waa aniga oo maanta halkan waxa ka dhacay walaalayaal musuqmaasuq lagu dhacay hantideennii Soomaaliyeed oo aynu lahayn xaq u lahayn laguna iibsaday waxa ku dagaalamay oo markaa ka dhiidhiyay qusulkii markaa joogay iyo qusul ku xigeenkii Maxamed Cumar Gange iyo Muuse Xirsi Faahiye iyo aniga oo xaaskiisiya waxaan idin sheegayaa walaal dhibaatadii ay halkan ka dhacday sida ay noo taabatay waxa lagu xiray ninkaygii anigoo uur laho 7 bilood ah oo gabadhan uurkeeda leh wax Muuse waxa kale oo lagu xiray ninkaan oo Abshir Muuse ah oo isagoo 1 sano iyo 1 bilo jiray xabsiga la geliyay xafladan aadka u ballaaran oo lagu taageeray go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ay ka gaartay laanshaha safaaradii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo gabagabowday aad u wanaagsan Faisal Caseer Somali Channel TV safaaradii hore ee Soomaaliya